waxa farxad weyn ah inaan munaasabaddan ka soo qayb galo harima sharafeedka aynu ugu sameynay golaha deegaanka ee caasimadda Soomaaliland iyo golaha deegaanka magaalada Burco ee labada xisbi ee mucaaradka ka soo baxay waxa kale oo Ilaahay mahadiya in arrimuhu inoo soo urureen aynu maanta in hor fadhiyaan labadii musharax labada maayar aynu sharaxnay iyo labadii musharax aynu sharaxnay labada maayar xigeen waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland ee nabadda ku codeeyay ee isbeddelka u codeeyay waxa markaa isbeddelka ummaddu u codeysay dhalinyarada aynu maanta u sharaxayno maayarada iyo maayar xigeenka oo arkaysa intay da'doodu leegtahay waa isbeddelkii dhabta ahaa ee ummaddu u codeysay waxaa kaloo mahadnaqayaa institutionkii ama hay'addii qaranka ee inoo maamuleysay doorashooyinka komishanka qaranka iyo ciidamada ammaanka iyagoo nabadgelyada ka shaqaynayay waxaa iyaduna guul u ah labada xisbi inay samaystaan isbahaysi siyaasadeed isbahaysiga siyaasadeedna kuma cusbo Soomaaliland 2005tii xisbiga kulmiye iyo xisbiga u cid baa samaystay isbahaysigaas ku soo baxay anigu inaan noqdo gudoomiyaha baarlamaanka waxaan maqlay qaar kulmiye oo isbahaysigu waa xaraan mabarigaas uu xalaal ahaa asiibaha marka waxaan u mahadnaqayaa mudanayaashaas oo runtii iyaguna waqti badan iyo dadaal badan iyo tacab badan soo galay inay ka soo baxaan tartankii adkaa ee la soo galay ee labadii doorasho ee saaraa waxaa Ilaahay uga baryayaa in ay waajibkooda Ilaahay fududeeyo waajibkoodana ay ka soo baxaan adeegga ummaddu uga baahan tahayna adeegga dhabta ah ummaddu u baahan tahay waa adeegga dowladaha hoose bixiyaan hadday caasimadda tahay iyo hadday Burco tahay iyo hadday magaalada kale intaba tahay marka dadku waxay idinka filayaan adeeg wanaagsan oo bilicda magaalada nadaafadda wax ka qabadda waxbarashada dhammaan adeegyada ummaddu u baahan tahay ee ku xidhan noloshooda inaad ka qabataan baa laydinka filayaa inaad beddeshaan muuqaalkii hore ee shacbigu uga soo baxay deegaanadii hore musharaxiintii idinka horeysay waxaan idinku ducaynaynaa in Ilaahay hawsha idin fududeeyo waajibkiinana idin garansiiyo dhalinyaro yar baa tiinada siyaasadda soo fuushay laba mid ma noqonaysa inaad jaranjarada soo fuusheen kor u fuushaan iyo in la idin haaraamo oo halkaa dub uga soo noqotaa ma mid noqonaysaa insha Allah dub uga soo noqon maysaan waxa aan shacbigana u sheegayaa oo tartan baa la galay tartankii dee ummaddu isbeddel bay codeysay isbeddelkii waxa hogaaminaya labada xisbi insha Allah dad magaalooyinka wadeega iyo baarlamaankaba ayay labada xisbi keeni doonaan xoogna ku fuuli maayaan tartan bay ku fuulayaan waxaan cid kasta waxaan ku oranayaa oo ilaalada shacbiga ha loo hoggaansamo